السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada Dalable Media. Waxaan idin la wadaagi doonaa xiisada colaadeed ee beelaha Ciise iyo Gadabuursi ku dhexmaraysa gobolada Awdal iyo Salel, Buurta Tooro Boore, Damasha, Ceel la helay, Bildaaley, Xariirad iyo xeelado dhaqdhaqaaqa oo halkaas ka jira xubno ka tirsan odayaasha beesha Ciise oo ku baaqay joojinta colaadda. Waxa kale oo aan idin la wadaagi doonaa haddii Rabbi Raali uu ka noqdo shirkii u dhaxeeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo golaha mustaqbalka oo mar kale furmay mid ka mid ah golaha wasiirada oo jawaab siiyay Saciid Dani. Haddaba jawaabtaasi iyo waxay ku saabsan tahay ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa. Soo dhawaada haddii aad inagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar, muuqaalkii inoo la garay, asxaabtaada la wadaag, aragtidaada inoogu soo gudbi qaybta faallada. Mahadsanidin. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa cirkiis ku sii shareeray xiisada colaadeed ee u dhaxaysa beelaha Ciise iyo Gadabuursi, taas oo ka aloosan qaybo ka mid ah gobolada Awdal iyo Salel. deegaanada sida Tooro Boore, Buurta la yiraahdo, Damasha, Ceel la helay, Bildaaley, Xariirad iyo Lukaye ayaa noqday meelaha ugu daran ee ay isku horfadhiyaan maleeshiyad beeleedyo hubaysan. xiisadan ayaa saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha bulshada, ganacsiga iyo isu socodka xasiloonida guud ee deegaanada xeebaha iyo xuduudaha ku teedsan. colaadan ma ahan mid ku cusub deegaanadan, balse waa mid soo noqnoqotay sanado badan iyadoo salka ku haysa murano dhuleed iyo daaqsin, sidoo kale ilaha biyaha oo kooban, gaar ahaan xilliyada abaaraha, xuduud beeleedyo aan si cad loo qeexin iyo saameyn siyaasadeed iyo loolan maamul. deegaanka Buurta Tooro Boore iyo hareeraheeda ayaa muhiim u ah dhinacyada istiraatiijiyadda maadaama ay ku yaalaan marino isku xira deegaano badan oo Awdal iyo Salel ah. sidoo kale Xariirad oo ah magaalo xuduud la leh Jabuuti waxay leedahay muhiimad ganacsi, halka Lukaye ay tahay magaalo xeebeed, kalluumaysi iyo ganacsi firfircoon. wararka laga helayo dadka deegaanka ayaa sheegaya dhaqdhaqaaqyo maleeshiyad oo ka bilowday hareeraha Damasha oo ay horseedeen iska horimaadyo, rasaas isweydaarsi ka dhacday Ceel la helay iyo Bildaaley uu sii huriyay colaadda. labada dhinac ay isku arkeen midba midka kale inuu ku soo xadgudbay dhul uu sheeganayo. arrimahan ayaa sababay barakac ku meel gaar ah oo ku yimid qoysas reer guuraa ah iyo ganacsato ku noolaa meelaha colaadda ka aloosan tahay. mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee soo baxay waa in xubno ka tirsan odayaasha beesha Ciise ay ku baaqeen joojinta colaadda iyo xabad joojin degdeg ah. odayaashan ayaa ku baaqay in la ilaaliyo nabadda iyo wada noolaanshaha. waxay sidoo kale sheegeen in loo baahan yahay in laguna adkeeyo dhalinyarada in aysan ku degdegin dagaal. sidoo kale waxa ay soo jeediyeen in xal laga gaaro miiska wadahadalka. tan waxay muujinaysaa in gudaha beesha Ciise ay ka jirto dadaal nabadeed, inkastoo weli ay jiraan kooxo hubaysan oo aan si buuxda u joojin dhaqdhaqaaqyadooda kana tirsan beeshaasi. dhinaca kale, odayaasha iyo waxgaradka beesha Gadabuursi ayaa iyaguna marar hore ku baaqay in la ilaaliyo deegaanada isla markaana la helo hannaan rasmi ah oo lagu xalliyo muranada dhuleed. colaadda ayaa si toos ah u taabatay nolosha dadka rayidka ah. qoysas badan ayaa barakacay hareeraha Buurta Tooro Boore. sidoo kale caruur waxbarashadii ayay hakad ka gashay. haween iyo waayeel ku sugan xaalad cabsi ah ayaa sidoo kale jira. hoos u dhac ayaa ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee magaalada Xariirad. gaadiidka u kala goosha Lukaye iyo deegaanada kale ayaa yaraaday. sicir barar ayaa ku yimid badeecooyinka qaarkood. dhaqdhaqaaqa xoolaha ayaa xadidan. sidoo kale daaqsimo qaar oo laga baqayo in lagu dagaalamo ayaa jira. maamulka Somaliland ayaa marar kala duwan ku baaqay in la joojiyo colaadaha beelaha isla markaana la xoojiyo nabadgelyada. si kastaba ha ahaatee, ciidamo ayaa la geeyay qaybo ka mid ah meelaha colaadda ay ka jirto. weli waxaa jira cabashooyin ku saabsan sida loo maareeyay xiisada. qaar ka mid ah bulshada ayaa dalbanaya dhexdhexaadin madax bannaan. dadka deegaanka qaarkood waxay qabaan in colaadan ay tahay mid laga fogaan karo haddii si degdeg ah loo wada hadlo. siyaasado hoose ay sii hurin karaan xiisada iyo nabadda ay ka muhiimsan tahay muran kasta oo dhuleed. dhalinyaro badan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan rabin dagaal, balse ay dareemayaan cadaadis ku saabsan difaaca deegaankooda. waxaa jira dhowr wado oo xal lagu gaari karo. kow waxaa ka ah xabad joojin rasmi ah oo labada dhinac ay ku heshiiyaan. in guddiyo isku dhafa la sameeyo oo ka kooban odayaal, culimo iyo maamulka. sidoo kale in la qeexo oo qeexid rasmi ah lagu sameeyo xuduudaha si looga hortago murano soo noqnoqda, iyo in dib u heshiisiin bulsho oo lagu bogsiiyo dhaawacyada colaadda ay ka dhacdo halkaasi. ku baaqista odayaasha beesha Ciise ee joojinta colaadda ayaa loo arkaa tallaabo wanaagsan oo horseedi karta jawi degan haddii ay la jaanqaado dadaalo kale. xiisada colaadeed ee u dhaxaysa beelaha Ciise iyo Gadabuursi ee ka taagan gobolada Awdal iyo Salel, gaar ahaan Buurta Tooro Boore, Damasha, Ceel la helay, Bildaaley, Xariirad iyo Lukaye
waa mid xasaasi ah oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada. inkasta oo ay jiraan dhaqdhaqaaqyo maleeshiyaad, haddana baaqyada nabadeed ee ka imaanaya odayaasha gaar ahaan xubnaha ka tirsan beesha ciise ee ku baaqay joojinta colaadda waxay iftiiminaysaa rajada laga qabo in xaaladdu u wareegato dhanka wadahadalka iyo xal nabadeed. mustaqbalka dhow wuxuu ku xirnaan doonaa sida ay dhinacyadu uga jawaabaan baaqyadaas iyo sida ay uga go-an tahay in la ilaaliyo wada noolaanshaha iyo nabadda waarta ee gobolada Awdal iyo Salel. waxaa maanta dib u furmay shirkii u dhaxeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo golaha mustaqbalka. waxaa mar kale maanta xarunta Villa Soomaaliya ka furmay kulan labaad oo u dhaxeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo golaha mustaqbalka, kaas oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka. kulankan oo ahaa mid xasaasi ah isla markaana dib u dhacay 2 jeer oo hore ayaa waxaa gudoominayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, waxaana sidoo kale goobjoog ahaa ra'iisul wasaare Xamse, taliyaha nisa iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda danqaran. dhinaca mucaaradka waxaa shirka ka qayb galay xubnaha madasha samata bixinta iyo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ku midaysan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed, kuwaas oo gaaray xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, halkaas oo uu ku soo dhaweeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. labada dhinac ayaa maalmahan ku maqnaa wada tashiyo gaar ah oo ku aadan wada hadalka, iyada oo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed uu ka laabtay go'aankii ay horey uga diideen in ay wada hadallo toos ah la galaan dowladda. waxayna meesha ka saareen guddigii gaarka ahaa ee ay u xilsaareen wadaxaajoodka, kadibna ku dhawaaqay in ay si buuxda uga qaybgeli doonaan shirka haatan ka socda xarunta Villa Soomaaliya. sida uu qorshuhu ahaaba waxaa maanta shirka diradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, gaar ahaan maamulada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle oo muddo dhaaf ku fadhiya kuraasta. mucaaradka ayaa doonaya in la qabto doorashooyin heshiis lagu yahay, halka dowladda federaalka ay door bidayso qabashada doorasho qof iyo cod ah. shirkan uu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalku wajahayo abaaro baahsan iyo xaalado bini'aadanimo ayaa waxaa si dhow ula socda beesha caalamka oo cadaadis xoogan ku saartay dhinacyada in ay xal ka gaaraan ismariwaaga siyaasadeed. si kastaba haatee, Soomaaliya ayaa haatan isgoys siyaasadeed taagan oo xasaasi ah, iyadoo natiijada ka soo baxda shirkan ay go'aamin doonto jihada siyaasadeed ee dalka iyo xalinta khilaafaadka ragaadiya geedi socodka dowladdiska Soomaaliya. wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo ka mid ah xubnaha golaha baarlamaanka dalka ayaa waxa uu ka jawaabay hadallo ka soo yeeray Saciid Cabdulaahi Dani. wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo la hadlayay warbaahinta ayaa jawaab waxa uu siiyay hadal ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, kaasoo ku aadanaa dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka. Dani oo xalay khudbad xasaasi ah jeediyay ayaa si weyn uga horyimid wax ka beddelka lagu wado dastuurka, wuxuuna tilmaamay inuu yahay dastuur ay samaysanayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka, sida uu hadalka u dhigay. dastuurkan meelaha lagu malmaluuqayo oo dadka la leeyahay ma tegi kartaan, cid uu dastuur u noqonayaa ma jirto. runtaan idin sheegaya, madaxweyne xasan sheekh iyo aadan madoobe hadduu dastuur u noqonayo ayaga ayay jirtaa. dalkan cid aan la aqoon inay qabsadaan ayuu halis ugu jiraa, ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. intaas kadib waxaa jawaab siiyay wasiir Bashiir Goobe oo isaguna si weyn u difaacay Villa Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay in uu yahay dastuur ay leedahay ummadda Soomaaliyeed, iyaguna ay u yihiin wakiilo la igmaday. madaxweyne Saciid waa nin oday ah, madaxda dalka ayuuna ka mid yahay, waxaana u hayaa xushmad, laakiin sida uu u dhigay ma aha dastuurka. xasan sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ma leh, gudoomiyaha baarlamaankana ma leh, isaguna ma leh, ummadda Soomaaliyeed baa iska leh. annaga waxaan nahay wakiiladii dadka uga ahaa inay dastuurkan sameeyaan, awoodana u lahaa, waana u fadhinaa, waana sameynaynaa, ayuu ku jawaabay wasiir Bashiir Goobe. sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray in haatan xildhibaanadu soo gabagabeeyeen doodii socotay ee wax ka beddelka cutubka 5 ilaa 9, isla markaana haatan kadib ay ka shaqayn doonaan ansixintooda. hadda waxaa noo soo gabagaboobay doodii, guddiga ayuu dib ugu noqonayaa, waxaana ku xiga ansixinta dastuurka ku meel gaarka ah, ayuu sii raaciyay Bashiir Maxamed Goobe. dhinaca kale, xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan wadajir ah waxa ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa, waxaana ay ku soo gabagabeeyeen doodii socotay ee wax ka beddelka dastuurka, xilli wali ay taagan tahay tabasho ay qabaan xubnaha mucaaradka.
kulanka maanta oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare mudane cali shacbaan ibraahim oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare cabdulaahi xirsi timacade. ajandaha kulankan ayaa ahaa sii ambaqaadida dooda ku saabsan cutubka 9aad ee dastuurka ku-meelgaarka ah, waxaana xildhibaanada labada aqal ay dood xasaasi ah ka yeesheen qodobada cutubka 9aad ee dastuurka dalka. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare cali shacbaan ibraahim oo goobta ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in lasoo gabagabeeyey ka doodista cutubka 9aad oo diiradda saarayo garsoorka, kaas oo ka kooban 4 madax iyo sidoo kale 25 qodob oo muhiim ah. cali shacbaan ayaa sidoo kale u mahad celiyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo ka qayb galay dooda, inkastoo la ganaaxay xildhibaanada mucaaradka oo hadda ka maqan fadhiyada golaha ee arrimaha dastuurka. arrintan waxaa si weyn uga soo horjeeda golaha mustaqbalka Soomaaliya oo haatan wada hadal kula jira madaxtooyada, kuwaas oo weli ku adkeysanaya ku shaqeynta dastuurkii 2012 kaas oo hadda wax badan laga bedelay. gudaana saaxiibayaal warbixinteennii intaa ayaan kusoo koobaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad channelka subscribe inoo saarto, muuqaalka inoo like garayso, asxaabtaada la wadaagto, aragtidaadana aad inoogu soo gudbiso qaybta faallada. mahadsanidin.